السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا يا مد الصومالي مركز سوى جوكتين ريرس دبياع يا ريرس دبياع ما تلاقوا هنقول بضنا إن شاء الله. سو دوادا كل جين إن شاء الله. وسرير الشيء كسرنا وحالي راها ما لما مغلى يا عطك واضح مية كلير مية يا كلير مية يا ثانك يو هي ويري محمد جامع. وعليكم السلام أحمد. سودو ما ولي قبويا تهي إن أنتي هل كانوا ما جرتي آوي يا سودو هذا أحمد سودو هذا إن شاء الله. أرضي ما تشي وين ما قبلهم بلا فديا يا أنا يا أخي صومالي لا حول الله لا حول. وأر صومالي كرامة هذه ومال كانت هلا قبل يوم بكشي كيرسي في الباب بكشي كيرسي يا سودو هذا إن شاء الله ضدكم سود شيء يا قف كسورة يجي سكر ديبني إن شاء الله غير استبياع يعني نقولي بحيي وحالي لها جمهورية غير استبياع فدراليشن كأه أي نبحيي جمهورية دا waxaa jooga dad subxaanaka ya casiim. adduunka oo dhan baa la yaabay. yahuudi baa xataa la yaabtay. adduunka cid aan la yaabin ma jirto. ummad muslim ah, isku diin ah, isku af ah, isku luqad ah, isku kalar ah, oo waxaa la yidhaahaa aan heshiila dhulkooda waxa ka buuxa betrool baa ka buuxa, kalluun baa ka buuxa, waxa ka buuxa waxaa la yidhaahaa magacii waxa yaala beerihii baa yaala, ayrankoodii baa yaala. waxaa la yidhaahaa wuxuu yidhi af soomaaliga ka sax qoraalka warti anu carabaan ka imacmo ya waa la fahmaya un aakhirka qofku markuu isku tiraagareeyo xa iyo ja iyo ya wuu la keenaya wuu fahmaya. soo dhow farxaan faaraxa waxaa la yidhaha yuusuf. waxa weeyaan waa wax lala yaabo wallahi waa wax lala yaabo. waxaa la yidhaahaa يعني waxa xaggayna gaarsiiyey insha allah maanta doonata ka hadalno. waxaan doonata ka hadalno kale waxa weeyaan waniyow dadku way dagaalamaan, dadku waxyaabo badan soo maraan. maanta dhigooda waadiga arkaysan daawanaysan qofkii footballka amba kubadda daawada ciyaaraha daawada carabtu way saysataa cunaqabateen bay isku haysaa. waxaa la yidhaahaa twitter bay ka dagaalamayaan, isku caayayaan, facebook bay isku caayayaan, youtube bay isku caayayaan, jaraa'idkii adduunka isku caayayaan, qarash bay gelinayaan si isku bahdilaan nin kastaba kale ka adkaado. markii ugu dambeysana kubad bay isla ciyaareen ya kubad ay isla ciyaareen kanna inaanay waxba jirin ma fahamteen ya. weliba dhulkii nimankii diisanaa mucaaradku ahaabaa nimankii mucaaradka loo ahaa ayaa kubaddii goolkii qaatay wixii dhan qaatay. waxaa inaka inoo diiday soomaalinimada iyo ahalnimada inaga dhexaysa iyo qaraabada inaga dhexaysa iyo dhiigga iyo kalarka inaga dhexeeya. waxaa inoo diiday bal inta isla fadhiisano isla tashano. waxaa qabyaaladan iyo ina gaarsiiyey heerkaas aan u noqonay sidii xabadii sikaarka amba sidii qof waxaa la yidhaahaa kaniin cunaya haddaanu maamulkiisa arag amba haddaanu waxaa la yidhaahaa qabiilkiisa aanu magaciisa maqlin amba hadda waxaa keenaya inaan cadownimo inaga dhexayso. marka insha allah يعني anigu waan soo jeedaya dadka adigu waxa uu aragtaa arintan maanta ka dhacday waxaa la yiraahdaa Kenya safiir Soomaaliya nin Soomaaliya oo dhan leerin laga bax nadaaf qashin iyo nadaaf lagu yiri karaamadaada sidii waxaa la yiraahdaa u yeelaysaa ya ugu faraxda dad baan arkay faraxsan dad baan arkay waxaa la yiraahdaa Somaliland waxaa la yiraahdaa ho Kenya ya war Kenya ma ku ixtiraam karto ixtiraamku saabku ma yaadayaan ورجل مركز صبر كم سيبد بعضهم لنا عكروا راعية وحمل له هذا رجال حقيقة وراضي وحا لو هلا ومركز Soomaalidu iyaga isku arursaday iyaga isku yimi iyaga waxa la yiraahdaa tashaday iyaga midnimo keensaday 60kii iyaga aana cid soo dhaxgelin bay yaa Soomaali weyn ay ku waasheen. marka cid ka saar karta ma jirto ilaa isla soo fariisano oo waxa la yiraahdaa isla hadlo وكا قاضي وحلي راه محمد وحلي راه عبد الكريم. مركا
anigu waxaan doonayaa maanta tan insha allah dhalinyar badan soo jiido qofka doonayta soo jiido waa soo jiidaya af carab ku hadal amba waxa la yidhaha af china ku hadal amba waa lagu fahmaya aakhirka no problem ya waa lagu fahmaya oo fikirkaaga iyo ra'yigaaga soo dhiibo ya marka waxa weeyaan waa inaan inaku maanta aan garanaa warniyahow 30 sannadood ayaan burburnay 30 sannadood karaaxa xun ay ugu dhacday waxaa la yidhaahaa nolol xun baa nagu dhacday tacliin xataa education fiican maanta ma la haysto ninka aragtid xataa ku yidhaha jaamacad baan kasoo baxay soomaaliya 2 xabadood oo ingiriisiya ma isku keeni karo waxaa la yidhaha akhlaaqnimadii shaqada amba abuurka shaqada waxaa la yidhaahaa waan kaa qaaday waxaa la yidhaha john soo dhow akhlaaqiyaadkii shaqada hadday saxaafad noqoto hadday noqoto waxaa la yidhaahaa umuuro badan ma garanayaan ma garatay afka xaggaas kusoo taagan yahay wuxuu leeyahay aqoonyahan unbuu soo qoranaya amba wax unbuu soo qoranaya iyo amba siyaasi baana xataa siyaasadda ma yaqaanaan ya qof baa wuxuu tegayaa maalihiisa 2 cisho oo bahal yaroo fuujari la soo cararayaayo kasoo koraya anigu waxaan haya waxaa la yidhaahaa magacii ninkii khatarka ahaa baan ahay amba indiyu qabanaya amba meelahaasu ka imanaya amba kenya meelahaasu tegayaayo bahal yaroo $2,000 soo qaato oo intaa la eeg buu ka oranaya anigu waan soo qalin jibiyey ma garatay marka waxa weeyaan anigu waxaan doonayaa maanta intaan isla hadalno warniyahow haddaa qabiilkaaga wax ku taray bal noo sheeg hadduu maamulkaaga wax ku taray bal wuxuu maamulkaaga ku taray amba kugu soo kordhiyey bal aan aragno dee ma noqonayso generation ilaa generation inaa la lumo imkaan anka generationkayga u lumay generation naga daba yimina waa lunsan yahay waa kuwa tahriibta ku dhintay ma garatay anaga waxaa generationkii u dhexeeyey dowladda kacaanka iyo waxaa la yidhaahaa burburka waxa ma haysan qaxooti iyo bahdelad iyo karaamo xumo iyo carruur bal qurbaha ku dhalnay iyo waxa ma haysan qaar weli xerooyinka qaxootiga ku jira ayaa jira soo dhow ya waan ku soo jeedayaa waxaa la yidhaha cabdiqani haddaa rabtid ya ma garatay caadi ra'yigaaga soo dhiibo adigoo ana caytamin dhib ma laha soo galo xagga naga dhaadhici waxaa la yidhaahaa mucaarad waxaa ku tahay waxaa ku soo horjeedaa soomaalinimada waxaa yani cuqdada ka haysaa waxay tahay ilaan haddaa reer somaliland tahay amba reer somaliland baan ahay nin reer burca baan ahay ma fahamti dee anigu soomaali adeer cuqdad muu qabi hadduu qabiilkaaga cuqdad u qabo qabiilo badan oo kula dega baa jira oo soomaalinimadooda ogol oo soomaalinimadooda ku faana oo walaalaha soomaalinta xumaato u timaado aan ogolayn marka bal adigu noo sheeg sababta matalan mucaarada ku tahay waan kusoo jeedaya haddaad doonaysid dheh soo qabanaya fikirkaaga ra'yigaaga adigoo ana caytamin adigoo ana cidna aflagaadin si waxaa la yidhaha walaaltimo iyo ahnimo nooga dhaadhici waxaa jira waaye xal isaan u gaadhnaa waayahay ma soconayso un waasnacnay adduunku kaa yeeli maayo adigana kaa yeeli maayo iyagana ka yeeli maayo anigana iga yeeli maayo yurubtaa markaan nimaadno soomaali waan isku dhiibnaa nin isku dhiibo somalilander baan ahay puntlander baan ahay waxaa la yidhaahaa jubbaland baan ahay iyo landheeraan ahay iyo qansax baan ahay adeer ma jirto ma garatay ya ma fahamteen يعني waxa weeyaan maaha inuu wixii qabiilku iyo mashaakil yani waxa jirta waqti ay fiican tahay inaan iska qabsano iyo waqti aan fiicnayn imka maanta Falastiin iyo boorama dal la sheegay Chinese ku haysta iyo maalin kasta iyo Suuriya iyo xagaasan ka ducaynaa ya xagaasan ka ducaynaa ilaahayow Falastiin ilaahayow bahashi ilaahayow dee inaka waxaynu diiday balinta isku ducayno haday dhibaato ay timaado inaan muslimiin baan nahay muslimiinta damiirka ku siinaya inaa u buruuratid oo kuwana kuu diiday inta u buruursid oo isku dhiig aad tihidiin oo isku dhaqan aad tihidiin oo wax kastaba isku tihidiin waxay tahay okay dagaal dhacay oo sanado ka hor dhacay oo cid kastaba ku dhimatay oo isaaq ku dhintay gabooya ku dhintay hawiya ku dhintay daarood baa ku dhintay cid kastaba ku dhimatay cid kastaba maalin bay lahayd oo waxa la yiraahdaa ay adkeyd oo la xasuuqay oo dhulka lala masaxay nin aana la baabimay jirin marka waxaa haray hadaba la soo baabiyay waxaan colaadan ilaa iyo qiyaamahayna wadasa waxay tahay tee iga dhaadhic ninka doonaya intuu aniga iga dhaadhiciyo wax bal xagga ay soo galo oo ay yiraahniyow anaku cadaawad waxa naga dhaxaysa sababtaasa jirta
زين واي ما انت مثلا كسو قادم كقاربه كل حقا عن كسمايو تعادر waxa weeyaa kismaayo waxa weeyaan waa dhul Soomaaliyeed weeyaan hadii mushaaraka jirto iyo xukuumadda ay jirto de adeer markay dan Soomaali ahaan soo jirto weena ay mowqif kale ay noqotaa maaha ina khalaas ana waxa weeyaan Axmed Madoobe baan u barooranayaa iyo filaan baan u barooranayaa iyo Soomaaliland ha guud de taas maaha hadal waxaan caatifada kala saar weynay caatifada in haysata ya waxa caatifada in haysata waxay tahay warana ka anagu gabooyo ayaa ilaayo zamanno xilaa maantada Soomaalidu dhibaato ugu haysatay laakiin marka dhibaatada aan aragno Soomaali walaalahay hadii Soomaaliland tahay hadii Puntland tahay hadii Xamar tahay hadii Tabciir tahay hadii meel kasta tahay ma jicnin waxa la yiraahdaa inaan raahno ilaahay asii baabiyo ilaahay dhulka ku sii masaxo imsaan ugu qaldanteen imsaan ugu gafteen imsaan dhibaato ugu geysteen ilaayo yani ilaa maantada ilaayo berito laan ognahay inaan dhibaato ugu sii haynaysiin iyadoo saasana te adeer anagu ma jeclin dhibaatada dadka muslimiinta ee walaalahayaga ma jeclin waxa la yiraahdaa inaan aragno cid wiil yar oo Soomaali amba gabadh yar oo Soomaali oo la bahdilayo ma aragni ma jeclin madaxweyne oo maanta Soomaaliya ka tirsan Soomaaliland noqdo amba Puntland noqdo oo bahdilad amba safiir u leeyahay amba cid u leeyahay oo dhulka lagu masaxo damiirka anaka nahay wuxuu adig ku heen waay dareenkan anigu nabadda aan wax kastaba u adkaysanayo oo anigoo ila takoorayo anigoo ila caayo anigoo aflagaada iyo xumaati liigeysanayo anigoo xaqaygii leeyahay bari leeyahay soo taagantihiin ayaan waliba leeyahay Soomaali FIFA Somaliland FIFA Puntland FIFA cid kasta FIFA maadaam meesha nabad ay ka jirto aan subaxdii aan soo kacayno oo nabad aan ka helayno waxay diiday tan anagu ku fakarino si anagu aqliyadan leenahay aan ku fakarino in aad ku fakartid marka anigu Soomaali waxaan leeyahay war adeerayaal alla kala saaro umuuraha dhan caatifada qabiilkaaguna waa gooni qabiilkaaga xaq baa u leedahay inta difaacdid qabiilkaaga qaladka loo geystay xaq baa u leedahay inta difaacdid inaan Soomaali ahaan gudaheena ka hadalno oo danteena ka hadalno oo isla hadalno oo wajhi wanaagsan oo wajhi fiican oo aqli ku dhex jiro aan keeno iyo waxa la yiraahdaa inaan kala saarno waxa la yiraahdaa colaad aana macna lahayn colaad aana wax la meenina gaarsiineen inako maanta adduunka ugu qanisan aan qaxooti ka nahay qaxooti aan ka nahay madaxdan maamulada ay sheegaysiin Puntland haday noqoto amba Somaliland haday noqoto amba Jubaland haday noqoto waxay noo soo kordhisay ma cid bay geysay ma qamar bay keysay ma nabad bay waxayna ka taqeer nabadana de shacabka samaystay shacabka ayaa samaystay sinaayo waxa la yiraahdaa magacii musabixi te adeer nabada mu isagu qasab mu ku keen nabada shacabka keensaday shacabka doonay intuu nabad ku noolaado oo aan dagaal rabin waxa la yiraahdaa Puntland sicidiin mu keenindi shacabka Puntland taajirkooda iyo qanigooda iyaga dhulkooda dhistay iyaga degadooda samaystay iyaga waxooda samaystay waxa la yiraahdaa gulmudug iyo baashi waxa soo dhan shacabka nabad raba shacabka dooneen inuu dagaal sii socdo waxay soo kordhiyeen iyagu ma international bay naga dhigeen ma passport macna leh madaxweynayaal baa lagu sheeganaya maamuladani madaxweynayaal baa ku sheeganaya waxay ku soo kordhiyeen ma passport sharaf leh bay ku siiyeen oo marka sabab ku tii kartid oo ka duwan passportka Soomaaliga ma waxa ku siiyay safiiro wanaagsan oo ku fadhiya maanta imka Jarmalka waxa jira safiir kulmudug iyo safiir Somaliland iyo safiir baalkii baa jira oo wax ku qabanaya maanta Liibiya hadaa lagu qabto yaa ka soo saaray dhalinyar badan oo maanta Liibiya ku xidhneed oo meel kasta ku xidhneed yaa soo saaray waxay inoo qabteen raggan madaxda ee loo sujuudayo aan waxba hayn أنا حقيقة ما كهضليا وحين سو بالإسراف فريستو وحين سو كردين أنا ما أنت وحن دونيا ننكيله Somaliland دربانه Somaliland روح كنت هاي حاجة إيش قالوا يقول ده وطن كيجا مدحوينه سو حاسو قبتي جامعة نودري تركيا جامعة نودري ماليزيا جامعة عرض هذه ضد كحنو صدا وحقية وحلي راها نختار ذا دونك وقفي عن وحلي راها
waxaa la yidhaahaa wuxuu la geeyey waxaa la yidhaahaa waxa jaamacadda maraykanka la geeyo dadka cirka taga iyo cirka dhulka hoostiisa galabaa naloo sameeyey naloo soo baray basaboorka markaan tegayno amba meel aan la qabanayn oo la oranay waa soomaaliga xumaan lagu oranay la oranay somalilander baa tahay may puntlander baa tahay may waxaa tahay galmudug baa tahay nin landheera baa tahay adduunka laga leeyahay bal aalii soo cadeed waxa weeyaan wixii inaan isla fikirno oo isla hadalno weeyaan waxaan ka faa'iidaya anigu dadkan maaha anigu tarcanan $5 anigu calan baan samaystay cadnaan markaan ahay calan leeraa gabooyaan samaystay habeen baan fadhiyey waan samaystay ma baan soo qaatay calankii maalintii labaad waan qaaday waan soo tolay gabooyo dhan baa qaatay 200,000 wax ka badan oo bani aadama ayaa calankii yaraa xaga ku sameeyey qaatay oo maanta surta oo ku faana dee waxay ka fiican yihiin waxaa la yidhaha muuse biixiyo siciidiiniyo waxay ka fiican yihiin aniga laakiin shacabkaygii wey dee lacag baanan haysan haddaan lacag haysan lahaa maamul baan ka gadi lahaa weliba maamul baan samayn lahaa marka waxa weeyaan adeerayaal runtaa laisku yimaado maaha qof kastaba anigoo caqli leh oo naftayda qaba inta wax laga gado colaadan maalin kastaba aan ka hadlayno oo qabyaaladan maalin kastaba aan sii wadno waxaynu soo kordhisay waxaan ka faa'iidnay bal ii sheega waxaa laga faa'iiday qabyaaladan iyo qurunkan iyo waxaan aan wadno waxaan ka faa'iidnay nin dhan oo facebooka intuu soo galo habeenkii oo dhan soomaaliya diintooda iyo jinsidooda iyo caaya wuxuu ka faa'iiday 300 isagii baa qaxootiba anigu waan caayaa soomaali ma lihima caayi laakiin de haddaan caayo wax xaqaban ku caayaa laakiin ma aragtay dad habeen iyo maalin dadka iska caaya shaqadiisu waxay tahay hurdada kasoo kac soomaali cay qabiilka cay fulaan cay kan cay gabadhan cay ayeydan cay kan daba soco kan life waxaan ka faa'iidnay mushkiladeena haysata waxa weeyaan danteedii baanan garanayn kenyaati xun oo fool xun oo waxba inaga qaadi karin inankaa isku jebinay etoobiyaan xun oo isagu laftiisu waxaa la yidhaahaa berigii hore weligiiba waxaa la yidhaahaa cagaha gaalada u dhunka jiray inankaas hoos dhignay inankaa karaamo xun xaggaa isdhignay cidna dhigtay ma jirto meel kastaba aad tegtidba waxaa lagu arkaa inaad tahay xoolo intaad tahay waxaad doontid ku faan laandheeraha doontid ku faan waxaad doontid sheego waxaa lagu arkaa 0 intaad tahay wax aana maskax lahayn xataa tuug ma tihid drooga iyo taajir ma ku tihid waa adduunkii baa kula yaabay soomaaligan wuxuu yahay bes waa sheeko meel sheeko unbaa la fadhiyaa waxaa la yidhaha waxaa laga hadlaya horumar laga hadli maayo waxaan ummadeenoo qabana laga hadli maayo waxaan xataa gobolkan deganaya ba qabiilkan deganaya waxaanu qabtaa ma jirto dad ba arkaysa xataa qabiilkoodii kala qaqaadaya qabiilkoodii waxaa la sii kala fogeynaya marka Soomaaliya laga yimaado maamul goboleedka laga yimaado qabiilka laftiisa laga yimaado jilib baa la isku jarjaraya kii Soomaali weyn raacsanaa waa cunsuri kii lahaa waan go'ayaana waa cunsuri kasii daran meel raaco yani dadku wasat bay lahaadaan diintaaba kule war wasat ma qofku noqdaa medium dhexdhexaad xagana power asinin dhexda una ho bal dantaada eego laakiin ma fi ya ama waxa kan ya ama waxa kan waxaan ka faa'iidnay 30 sanadood caruurteeni generation dhan baaba'ay dad badan baa bad ku dhintay qaar gaajo ku dhinteen qaar abaara ku dhinteen iminka abaaraha soo socda alu leeyahay Soomaaliya oo dhan gabigeeda sidaa umada looga badbaadin lahaa waan ka qaaday Axmed saa adduunka looga badbaadin lahaa abaaraha soo socda iska daaya Kenya bal abaaraheena gaajada caruurteeni baa gaajoona xoolihii baa dhimanaya intii yareed nafaqada ahayd baa ka dhimanaysa waxa loo hayaa umadan ما في وحما الله هيو قبيل بالله هي لكن ديار وانا هي قبيل كي انت انا بحيو واحد على $10 يلا بكون $1 لكن انا الصومال نمو الاسلام نمو بحيو مو اوغري
soomaalnimo iyo ahanimo iyo intaan u bixiyo ma ogoli 5 salaadood baa tukatiin allahu akbar muslim baan nahay allahu akbar muslim baan nahay allahu akbar muslim baan nahay ashhadu an la ilaha illa allah ya bismillah alhamdulillah rabbil alamin بعدين مركو صباحه وقبلكي نينك معارض كو مسبيحي أنبا وحالي راها مقعيم ديني أنبا وحالي راها فرماجو وقبيليستي نينك تيقاري أنا وقبيليستي تي حقالة قبطة مركا إنك لفتين هذا استيقارنا وانا قبيلسكو تيقارنا مركا إن ماذا ريال أنا وحاور لها صوماليي intaas sanadood waa burbur bayna ku dhacay waxa la yiraahaa khasaaro badan bayna soo galay nafteeni naf iyo maal waxyaabo badan bayna inaga tagay waxa la yiraahaa xaga loo soo socdo wallahi la garan maayo maanta Soomaaliland hadii ictiraaf hesho anu ma galin waxa lagu sameeyo waxay haysataa economic mageel bila carreysa iyo laba xabadood ari la carreysa iyo dekad yar waxa la Puntland hadii birito la goodo waxa la carreysa madakadii waxa la iyaduna iyo laba kalluun bil carreysa yani waa inuu qofku isweydiiyaa war waxa danteena dawlad qani baan nahay wallahi oo qani baan nahay haddaan helno dad ina wada oo maskax leh oo tanaasul bixinaya oo diyaar u ah inay ummadan masaakiinta ee fuqurka dilay ee gaajada dishay ee waxa la yiraahdaa noloshu ku baabaaday ee carruurtoodu tahriib ku dhinteen oo maanta hadda la xisaabiyo inta dhalinyar waxa la yiraahdaa joogtay iyo inta dad waaweyn joogta dadka waaweyn baa badan yani Soomaaliya hadii 20 sanadood ka sare ku sii socoto ay dawladdu qabsan kartaa ma garatay waxa la yiraahdaa soo qatra badan ku taala bayna qabsan kartaa marka waxa weeyaan Soomaaliya bal isla fariisto oo bal qofka sabaha isweydiiyo war adeer aniga waxa ay soo kordhay qurban jooga 300 euro baan qaataa guri yar oo qaxooti baan ku jiraa waxa la yiraahdaa job center baa lacag siiya 24 saacadood madax xanuun baan ku jiraa luqad adag baa ilay diray maalin kasta hadda saraha luqada bahalkii Soomaaliya had ma lagu celiyaa hadda leeyahay Soomaaliya ma toona okay Soomaaliya matala lagu celiyay waxay iga horeeya waxay iga horeeya qabiilkii baa iga horeeya qabyaaladii baa iga horeysa qorinkii baa iga horeysa ما فهمتين marka qofku wuxuu doonayo ku faano laakiin waxa weeyaan waxa ku faanisid wax ma ku taraya dib ma laha waxa nimco ku faan laakiin wuxuu ku taray leena maka baliishe anu kaasan ku faana walada wuxuu ku taray waxa ku haysata hada tahay waxa la yiraahdaa dheerayaashin lacagta ay soo gooni laakiin dadka kale kulan nool waxay haystaan waxa ma haystaan fuqurka inoogu badan inaka uu ugu jira عروت سو تهريب سوارير برعي رير هجسين هذا ما فهمتي يا واحد سو تهريبية ما انت اللي ودونتي افرت بقول كل انت رير برعي هاي وحاول انت عندي هدو واحتر لها marka ilmaadare aan waxba inii sheegaya aqliga laga shaqeysiyo uqdada la iska saaro qabyaalad waxna ku soo kordhimayso meelna kula tagi mayso waxa la yiraahdaa musabbiixi wala diini wala waxana teegaaraysiin waxay ku soo kordhiyaan ma jirto badaadii baa la iibinaya dhulkaagii baa la iibinaya lacag khasaaro baa lagu gadayaa waxa la yiraahdaa afar nin baa waxa la yiraahdaa inay markay muddadooda 4 sanadood ay dhamaato waxa la yiraahdaa hoteelada ka karaysanayaan ka samaysanayaan guriye ka samaysanayaan 4 sano markay dhamaato adiga waliga 10 calan saaro amba 10 waxa doonta samayso wax ka helaysaa ma helisid adigu shakhsiyaha waxa ka helaysaa ma jirsid carruurta tacliin la'aan tacliin xumo waxa la yiraahdaa carruurtaadi markay secondary school dhamayso oo iskuulka dhamayso shaqo la'aan ku dhacayo waxa la yiraahdaa beertii yarada haysatay markastaba waxa la yiraahdaa xataa meel yar biyaha aruursay roobku soo dhacda ma lagu sameeyay saas loo sidiinaya sanadka 4 sano 3 sano markay dhamaatana waxa la yiraahdaa waxa ku imanaya waxa la yiraahdaa fuqur baa ku imanaya iyo haraad iyo
iyo meeshiyo baabacda iyo hadha tolana adduunka ana reer soo gaaro Soomaaliya Soomaali baan nahay United Nation adduuniyo baba tutu umba ayaa ku dambaysa imika 30 sanadood wax la soo kordhiyay ma jirto waa kaase waxa ugu dambeysay jid la sameeyo amba shaaric la sameeyo wanaagsan oo umada wax taro oo technical balki siyaad bar ugu dambeysay may inta soo xukuumadoodu baa jirtay waxay qabteen ka ugu laandheeraysan 1 kilomitir buu dhisay 1 kilomitir buu dhisay dhaqaalana waa qaata dhulkiina waa gaday dooni badina way gadeen dekadiina way gadeen waxay hayaan waxa ma hayaan adiga umba karaamo xun ku nool adigu umba lagu leeyahay Soomaaliga xumaa maanta kiini waxa lahayd war Soomaalidan xashiishka ah naga saara kuwan qaxootiga kuwana aan ku dhaawacayna xukuumadan Soomaaliya imsa qaxooti baa jooga Kenya imsa qaxooti baa jooga waxa la yiraahdaa Ethiopia imsa qaxooti baa jooga dhinaca Djibouti waxa ku bahdilay qabiil baa ku bahdilay qabyaalad baa ku bahdishay ayaa xaga ku dhigtay qurun baa xaga ku dhigay marka araan waxa la damiir yeesha Allah yakhliikum damiir yeesha talabaad waxa sheegay ragga magaca Soomaaliland waxa la yiraahdaa wata aadar Soomaaliland kaligiin ma lihidin waana la leenahay wadanka magaca una naga xumeynina ila la oran maayo waxa la yiraahdaa Soomaaliland waxa weeyaan waa saaqoone waxa la oranaya waa saaqi iyo gabooyihiis wati iyo samroonki xumaayo waxa la dhulbahanti iyo macadulmaanta lagu soo daray warsakil waa lagu soo daray marka adeer yar haday inku cuqdad isaaqow ka qabtiin waxa la yiraahdaa Soomaali weyn iyo filmaan ay sheeganaysiin adeer magaca qabiilkaaga ku dacwood magaca waxa la yiraahdaa wadankayaga ee wiligiiba sharaf lahaa ee biligi Ingiriiska ilaa maantada anaga xumeynina haddii اعتراف tirtiin adeer saama lagu doonto la waalaan gaabnimo اعترافka waxa lagu helaa maskaxdaada sa lagu helaa kaasa laga shaqeysiyaa kaas ayaa laga shaqeysiyaa kaas hadaan ku shaqeynay adeer xukunka iska soo celi oo dadka kula dega had ma ka aqli wanaagsan hada adigu xoolaa tahay waxaan awoodin اعتراف ma lagu helay saade Soomaaliya ayaa maanta anaku haday Kenya waa taageersanahay anaku waxa la yiraahdaa dawlad macaal adeer hada siyaasi fashil baa la yiraahdaa siyaasi fashil yaare hada wax kiilisiin aakhir shay baa la soo xidhaa waayo in Allah yaati ala qad niyadaadu ku siinay niyadaadu wax ku jirta hadii niyadaadu saafi ay tahay ilaahay bir horun barwaaqayn macadna siilaha xumaatada dad muslimiin oo walaalaheen oo Soomaaliya isku dhignahay ma 24 saacadood inta xagga soo taagnaatiin oo magaci Soomaaliland ee shaarkii calankii Soomaaliya soo qaatiin xagga ka caydin maaha Soomaaliland daraadi banu nacnay wallahi daraadi banu nacnay waxa afarta xabadood awood sheeganaysa ana aqli ha isku hayn adeer maaha aqli waxaas عقلي ماها كانوا اساسا كبحيا عادي انه ما هسنتين انت صوبا سو غلي وحويان ور قلبينا نظيفه نوضو الهي توفيقنا نسي قلبينا نظيفه هين وقلبينا ايا مدو سومالي ودما كهادلان وقبيلنا كهادل مايه قلبينا مدو هادو قلبينا نظيفه هالها إلهي wuxuu siiyaa dadka calaqad niyadoodu siiyaa hadii niyadoodu ay saafi tahay Ilaahay wuxuu siiyaa waxay rabaan buu siiyaa hadii niyadoodu ay xun tahay oo qalbigoodu madow yahay Ilaahay albaab kasta ka soo xiraa albaab kasta oo ka soo xiraa fuqur buu ugu abshirayba bishaara fuqur gaajo karaamo xumo niyad jab ayaa ku jirisay qalbigiina bal isku saaf garay adeer yahuud manihin maanta yahuudiya carabti ba heshiisay yahuudiya carabti
ilaa iyo berigii waxaa la yidhahaa muuse calayhi salaam ilaa maantadaas haystay ayaa iminka heshiiyo isla shiraya oo danaha waxaa la yidhaahaa carabta iyo waxaan isla qabanayo waxaan mashruuc waxaa la yidhaahaa aan ka hadana waxaa la yidhahaa ka sheekeeya. ma garatay? marka waxaan leeyahay adeerayaal, ma yahuud miyay naga fiican yihiin iyo carab? yahuud iyo carab miyay naga fiican yihiin? ilaa waa kuwa maanta isla fadhiya isla qadaynayay quduskii alahaydeen muslimiin baa nahay, waa taa xataa yahuudi la siiyey aleeri xaal qaata. adiguna weli waxaa soo taagan tahay ma is arki karni, ma is arki karni baa soo taagantihin. sababtu waa maxay? ma la garanayo. waxaa la sheeganaya wax dad dhintay oo qubuurihii galay oo filinkiiba u dhammaaday, waxaa lasku haystaa. ma garateen? xataa ma ismaqashiin, meel kastaba waxaa ka dallaacsan jabhad. somaliland kaamka dad baa is haysta, waxay isku haystaan ma la ismaqlaya dee. garxajis iyo jeegaan waxay isku haystaan ma ismaqlayaan. ninka jeegaanta midootu maqlo dee walaalihii oo isku saaqa yihiin midootu maqlo shiir buu leeyahay meesha dadka anagu waxa maynahayn, waar waan ku dulmanahay, waar xaqeegi, waar walaalaha baan nahay, ma ogola. waxaa la yidhahaa dhulbahaante wuxuu uga go-ay puntland, wuxuu uga go-ay puntland, wuxuu ka soo go-ay khaatimi state iyo somalilandna wuxuu ka soo go-ay. kuna abtiyaal buu yihiin, kuwana waxaa la yidhaha waa walaalihii. wuxuu ka soo go-ay maamul keliguu samaystay. ma la ismaqlayo. xaggana uu tegay nimanka abtiyaasha iyo xudidka ahaayeen waxay doonayaan intay wax kastaba ku fadhiistaan. kuwan puntland ilmaadeerka yihiinna kursi kale ma ogolaanba, waxna ma ogola. wax yaroo la ogolaan bay ay siinayaan. madaxweyneynta ka noqdaan puntland ma ogola, nimankii ma jirtaan. marka waxa weeyaan wixii ma la ismaqlayo. ninkan ka dagaalamaya kule waa niyow xaqayga kule ma loo joojinayo. marka sidaa buqacadii yarayda xataa qabiilkiina ayaa ku heshiin weydeen. waxaa haysiin dee, waxaa la isku hayaa. xamar waxaa abgaalkii hawiyihii baa heshiin la oo walaala waa heshiin laayeen. bursadihii iyo abgaalkii baa heshiin la. marka waxa weeyaan adeer fahma meesha calan baa taagatay, ilaahay tawfiiqu ku siin waaye. wuxuu tawfiiq ku siin waaye laana qalbigaaga madow. hadduu qalbigaagu nadiif yahay ummadda waa maqal lahayn, waa ismaqal lahayn, waa soo fariisan lahayn, war waxaan isla qabsanaa, calanka ma bedelnaa, caasimad kale ma samaysanaa, war waxaa la yidhahaa ma kala go-naa, oo waxaa la yidhaha wax yani waa xal waa la gaari lahaa haddaan si daacadnimo aan u rabno. haddaan doonaytaan wax xillayno. buuq 30 sannadoodba sheekadu may sii socoteenba. hadday inaka daacad inaga tahay inaan wax xal aan samayno wadciga soomaaliya, ma garatay? waxaa la yidhahaa yani meel waa la gaari lahaa. laakiin ma la ogolaa. qalbigaana madow. nin kasta wuxuu doonaya intuu isaga inuu wax u noqdo. walaalkiisa ee la dhashay xataa iska daa soomaalida kale ma ogola inuu bal xataa wax la qaybsado. kasaa dhow ka oranayaan soomaali weyn, somaliland, puntland hana waarto, badiiq ha waarto. war waxaa ku waaraysin ma munaafiqnima ku waaraysin? ilaahay tawfiiq siduu inay siinaya, waxba inay siin maayo tawfiiqde. marka anigu waxaan leeyahay waar bal isla fariisto oo dhalinyarta anigu la hadlaya inta caqliga la saaxiibka. afarta xoolo ee cuqdadu haysato ee buka anigu la hadli maayo. waar isla fariisto oo bal qof kastaba dantiisa ha eego oo ay yidhaaho waa nin yahow anigu somaliland baan deganahay. aniga muuse biixi iyo calanka somaliland waxaa aniga ii keenay, wuxuu iisoo kordhiyey. war anigu waxaan ahay puntlander. aniga cabdiweligaas wuxuu iisoo kordhiyey, amba waxaa la yidhaha diini wuxuu iisoo kordhiyey. calankan iyo qeyr magacan wax kale may jiraan. dhaqaalahayga miyay hagaageen, xoolahayga miyay hagaageen, carruurtay shaqa miyay heshay, waxa oo dhan alxamdulilah may. meesha cadaala ma taallaa. waxaa la yidhahaa baasbooro amba waxa document oo soconaya ma hayaan.
waxaa la yidhahaa xataa soomaali weyn lafteeda waa in la isweydiiya calankan buluuga wuxuu anigiisu kordhi farmaajo ma wuxuu ii hayaa h v waa inaan isla fadhiisanaa oo danteena garanaa waa inuu qof kastaba uu caqligiisa uu ka hadla intaan iska saaro caatifada qabiilka iyo beri baan ahaan jirnay waxaasaan ahaan jirnay maxaan maanta haysanaa ma fahamti waa inuu qofka waxaa isla fadhiistaa isweydiiya dhiig baan usoo marnay waxa inta ka baxdid bal adigu waxaa isweydiisaa waxay ku hayaan waxani waxay kusoo kordhiyaan marka waxa weeyaan adigaana damqanaya marka la yihahdo soomaaliga xumaa adigoo shaarca socda fak soomaali adigaa soo boodaya number one adigoo aana eegin ma somalilander baan mise puntland marka magaca soomaali las yiraaho adigu baa soo eegay shaarica markaa socotid iminka yurubta hadda socotid soomaali marka la yirahdo adigu baa soo eegay wayna titro xagee qabanaysaa ya marka waxa weeyaan waxaa la iskala dhaamo insha allah intaas soo kale karaamadiina adeer ilaashada waxa meynay harin karaamo xumaa ku dhacdeen walaa somaliland wax kusoo kordhisay walaa puntland wax kusoo kordhisay walaa galmudug wax kusoo kordhisay walaa cid baa wax buunsa biixida dadka nimka faanaya war adeer guryu jabuuti ka dhistay bertolo kaaga dhaqaaqaya cadlo ma fahamti waxna ma ku hayo siirzuuro ba soo istaagnaanaysa adigu baa hadhu tula calaacali adigu baa oran xukuumadda dambe iyo xukuumadda weligaaba dhaliil unbaa dad u sii raadinaysa war adigu fakaro dantaada eego waxay kusoo kordhiyeen dadkan yurubtan xataa ma ku joogtiin somalilander iyo puntlander soomaali baa ku joogtaa soomaali baa ku joogtaa oo sharci ku qaadatay oo 300 oo ku qaatay guriga aftiimaya aan degannahay maanta magaca soomaaliyeed baa lagu qaatay yurubta haddaa la xisaabay ninka keliya somalilander ku jooga waa aniga oo sheegtay bacadaalag waraaqda way diideen waxay gu qoreen soomaali bay gu qoreen qabiilkaaga inta 300 euro ku iibisay oo waxaa la yidhahaa waddankaaga iyo calankaaga iyo maamulkaaga xumaa 300 euro ku iibisay ayaa xagga facebooka iska dhigaysa qof muwaadin ah oo waddankiisa jecel yaa qabiilkaagii waa ku gaday 300 euro waa 300 haddana waxaa ku gaday waxaa la yidhahaa waddankaagii waxaa ku degday calankii xumaaya tolatay markaasaa facebook soo taagan tahay fifa ya marka waa taa xaqiiqdu ya wallahi marka waxaa leeyahay fifa farmaajona ma jirte waxa weeyaan danteena fifa war waxaan ku heshinaa soomaaliya waxaan ku hagaagnaa waxaan isla qabanaa ilaa goorman ku jiranaa noloshan xun anigii baa qaxootiya ma bertolo waxaan doonaa inay kaga intuu qaxooti noqdo ummadaha kale carruurtooda fasax bay u geeyaan waddankooda iyagoo ana ka baqin waa kaasi car waa kaasi qof baasboor yurub qaatay waddankaa toosa uga tago waa inuu baasboorkiisa qariya haddii kale gobolku joogoba waa lasoo qabanayaa sharciga laga qaadaya waa inuu baasboorka etoobiya amba jibuuti kaga taga marka waxaa la ilaahay soomaali oo dhan hadeeyo isaaq ilaahay ha hadeeyo ilaahay gabooye ha hadeeyo ilaahay hawiye ha hadeeyo ilaahay daarood ha hadeeyo ilaahay cid kastaba oo soomaaliya ha hadeeyo oo ilaahay xaqa ha tuso baan ugu leeyahay laana sharaf xumada ku noolnahay wallahi ana ininku arkimaysin qabiil baa laana qabiilkaaga hub haysta qabiilkaaga ayaa boor ku haysta meel yar wax bugcad intuu qabsaday oo waxaa la yidhahaa maanta ninkii baa isdulmaya anaga sheekada waa naga tagtay ninkii baa maanta isdulmayo oo iscadaadinayo oo ka kalaaba doonaya intuu kakala dacso cadowgiinina maalin kastaba dhulkiini saas u daaqa kenya 30 sanadood bay badda soomaaliya saa u daaqaysi waxaa la yidhahaa beeraha gadanaysi etoobiya saas oo kale inta isku soo gasho bay waxay doonta bay qaadanaysi 4 saaqid oo maamul isku sheeg ah ayaa waxaa la yidhahaa u fasaxay gabdhaheeni saasa loo kufsanaya yani wax yani waa يعني هيرك قبيالته ليه قاعد يبان لا يابسناي أنا إلهي عندي كدقي وأخشيناهم فهم لا يبصرون إلهي نقدقي
يعني عمي يعني وبني آدم نول عنديسو أفر تاسي دقيسو وصاحي هذا إلهي ملبو أعمى كدقي قف إن لا أو كلا قلبي لا إلهي نقدقي دنتينا مسلحدينا مقرنيسين لين يوروب جوجو oo 300 euro qaato ifta leerka ku noolba miskiin euro Soomaali joogo maalin kasta inta fi live soo galo qabiil ku shiday qabyaalad ku shiday calqal waxba la soo kordhiya qadiyad baa laga hadlaa hatta lagu dulmayo si sharaf leh baa loo soo dhigaa wixii loogaga hadlaa oo la hagaajiya oo la wanaajiya oo dantaadana waa laga hadlaa danta umada Soomaaliya waa laga hadlaa oo waa la soo dhexdaraa oo yaqay jiwa wax ka barta anagu cid moodidsani aniga Muuse madaxweyne buu yahay دين مدحوينه بوياهي فرماجة مدحوينه بوياهي وحلي راها مقعي أنا قلمودك وحلي أنا كنا هستمدو مدحوينه بوياهي أنا قاعد ريسبكت لكن ريسبكت وحا كوتشرا وحياني إيه هيا وطن كان مالك السبع إثيوبيان إيو حلي را عرب إيو حلي را كنياتي إسكا حلالي ستي oo dhaqaalaha iyo xoolaha iyo malaayiinka aniga ana la oranayo in yaro hamba cun ilaa goorma ay soconaysaa ilaa goorma ay soconaysaa يعني حتى وحيابها jirta qofku markuu arko uu firay imka Khalid kelmadii baa koornaya imka Suudaan dekedeeda 4 bilyan baa lagu gaday 4 bilyan adigana half 500 milyan oo caadiya ayaa lagu gaday dekada dhan adduunka dhan asku iman lahayd oo berbera oo caan ah oo la yaqaan oo min berigi Ingiriiska iyo Portugiiska ay u ahaan jirtay meel ay ka duulaan ayaa 400 milyan lagu gaday waxa la yiraahdaa magaci dekada waxa la yiraahdaa magaci Suudaan ana cidna ana gelinba wala ag maraayo salaam calaykum bal yiraahdaa doonta soo martaaba salaam calaykum batra ma gashaba 4 bilyan ayaa lagu gaday يعني 3 بليون baa u dhaxeeya halka bilyan nin kasta oo Soomaaliland degan waxa la siin lahaa 500,000 ayuu qaadan lahaa isaga businesskiisa samaysan lahaa cid ka soo degan gabigeedo 3 milyan baan nahay hadaa nin kastaba 500,000 la siiyo 500,000 la siiyo farta laga saaro maanta dadka ugu taajirna oo ayaan noqon lahayn waxay 500 milyan waxa loo gaday qabyaalad baa loo gaday يعني qolada ka gaarin baa lagu gaday 3 milyan oo bani aadam lacagtoodii ay xaq ku lahaayeen baa la markaas waliba 8 milyan oo gooraysan la cunay waxa ka hadlaysaa ya akhi waxa ka hadlaysaa hada waxa ka hadlaysaa waxa isku haysin zero baa isku haysin laga dafaanka iyo filmaanta wuxuu noo hayaan deen 35 sanadood ayaa shanta waliba haday halahayd hal sano dib ma laha 30 sanadood baa 500 lagu talagalay 500 milyan lagu talagalay 30 sanadood ayaana ka faa'iideysan karin dooni aan ka soo dii karin alaab aan aad u kariri karin caashurta badda ana awood u lahayn ta ka qaadasid سعر بركان iyo gaajadan maanta Soomaaliland laga qaylinayo waxay tahay meeshii kali dhaqaalo ka soo galeen laba ayaa cid kale siiyo lacag khasaara lagu siiyay wariya akhi مع السلامة aad ba ma santiin waxa la yiraahaa cid aan qalad ka fahamtay raalaha saaxib laakiin waxa weeyaan runta taas ku sheego xagee mar saarto iyadoo aan qabyaalad ku jirin iyadoo quraan ku jirin laakiin waxaan ka codsanayaa oo ku soo celinayaa dadka reer Soomaaliland ee dhalinyarta ee Facebook iska fadhida adeer dhulka waa leeyahay dadka nolol la tashada waxa la yiraahaa magacooda ku hadlina iska soo gudboodina
anaku hadday ninku cuqdad ka qabtiin adeer waxaa la yidhaahaa soomaalida kale aniga shaksi ahaan anigu cuqdad ma ka qabi all soomaali waa walaalkay waa isagaa iga dhow cid kasta isagaa etoobiyaan iga dhow isagaa kenyaati iga dhow isagaa carabi iga dhow ay xumeeyo ay caayo ay aflagaadeeyo waa waxaan anigu iyo soo ku heshii karno laakiin ma aha inaan anigu cadow aan weliga aan u jabiyo anu taasoo baa ka hadlaya damiir aan yeelano yaani cuqdadu inaga horeen muslim baan nahay ashahaata baan nahay maadaama muslim shahaada aan afkeena rasuul alayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi axib ila akhuuk ma tuxibu nafsak waxa adigu u jeceshahay naftaada dadka kale u jeclo waa diintaada ayaa ku amraysa marka anigu waxaan jeclay ta nabad ku noolaado waxa weeyaan walaalahay kale ee Soomaalida anigu jeclaado inta nabad ku noolaadaan ma jecla anigu nin cisheeyntu waxa la yiraahaa umurahayga soo dhex galo oo waxa la yiraahaa waxa weeyaan inaan anigu jeclaan nin Soomaali walaalkay inta umurihiisa cid kale soo gasho waxa weeyaan inaan anigu saamaxo walaalkay Soomaali xataa haddii ugu qaldamo waayo dhiig baa naga dhaxeeya deegaan baa naga dhaxeeya maanta haddii Hargeysa ay gubato amba Burca ay gubato dee adeer boosaasan carraya waxaan carraya xamar baan carraya haddii xamar maanta gubato oo dagaal xun ka dhaco dee adeer Hargeysa meel kale mitigayaan Burca Hargeysa bay qabanayaan marka dad saa isku xiran baan nahay ma aha inaan cadownimo aan iska sheegno ictiraafuna adeer yaa saa ku iman maayo والله العظيم أنا يجي مقالة اعتراف حكومي مانا يا ورموسو انتو يمادو كرا هلو فرماجو وريا كالا نيو هذا كالا يبو غاقوبة تعال يلا ناو يمكن كذا يوكالة تكرق يوكالة ماشا وامحيدي هذا وامحيدي وها حل هيسا فرماجو رقنا ماذا واتها رقنا ماذا ما هاني انو تركيو iyo xalay raha iyo arab iyo kenyati iyo ethiopian iyo aan la soo dhaxgal farmaajo uu yahay bas aan ugu yeero dad kala de anigu hadda maanta madaxweynaha Allah taasoo ku fikir lahaa who is farmaajo uu yahay saan anigu madaxweyne kala ugu yeedho amba dad kala ugu yeedho war af Soomaaliya ku hadashaan af Soomaaliya ku hadashaan mis fahamna anigu waxaan ka rabaa xorriyada ka rabaa shuruudan kala dhigan waxay tahay naftu mar bay baxdaa ilaahay goorma anaka been loo sheegayadi waa taxqiiq taasun baa wax lagu heliyaa af macaan adeer wax lagu heli maayo بين الشعب كل جيران سومالي وإحنا ندي لجوه المايو سومال Chinese ما هاي يهودنا ما وادت صادق كل مسلم وشهادة وكالا يبل وحان سمعنا ما وحي هرميان دافنا أو شعب كلنا سومالي باسكون قلنا مسا أدر وان كلا دقاقنا أيوه وحا حلدي شروط دارتين انت كارب وأنا وديار بانا وحاربتها what you need مركا الشعب كأيو مدو أي كلا دورتال مركا رقنا ماذا هو تاس ويان لكن ما هانقو أنا وح يعني أنا معنا لهين مركز سويتان إثيوبيا ما أنت كسور تشدي فرماتشو أنا قدرنا هاي سومالي لا ولا الله هيك واحد تيجارنا إثيوبيا إيش هذا ما كو اعترافت إثيوبيا ما كو اعترافت كينيا واتاسي سفير ما قبل سفير كان صار لك هاي روكه هذا مش حل هذا ولا نقابله ما هذا ساو حمر وهذا ساو حمر وهلا إيه قلت هذي وعرنايا وأنك ولا كيديسن بريتو لسه قلت صدق حرية أنك وحول قصة بينايا أنك ولا كي بالقصة لذا أنك وحول بريتو لنا قبنايا أنك وحسونه بابينايا أنك إيه قابس وديني أمود أدونك التحوليين الدميريين وأنا الأوجي بورك صومال لو حكوا على صومال دبيالا وحاله اعتراف ويدوك لو حكوا اعتراف وهاي لأنه وحاله هذا هو اعتراف قاتل نمبر 1 حراس يتشوف أنا دقالة ميا نن وارم باتهاي نن أنا ميري قيم باتهاي نن هذا وحكى عروتي مركب بابينا يا باتهاي وقال لي ورادر علن بقول لي ما هتا يلا علن كيسودا لكن أنا لقوا اعترافنا مركب وحوي وين فهمتين وين فهمتين وحال وجودي سين وحيتهاي geesigii Soomaaliya ayaa tahay ninkii Itoobiya gaaraad ugu ahaad nimankii wadanimada Soomaaliya ka muujisanayd in kana haynde mumkin Soomaali qaldan leeyahay hatta Soomaali qaldan waxaan lagu bixiyay macal faadib aan lagu bixiyay laakiin waxa la rabaa wixii inaan fahanno
maaha inaan iska buudbuudno uun nin waalan oo aan amiir qabin intuu marka soo ilaaho farmaajo soomaali weyn ayaa inagu haysa war adeer cidna waxba ma ku hayso dadkaaga adigu maamulka kula jooga bal heshii gabooya urur leh kaa dacwoonaya dhulhaanta ayaa kaa dacwoonaya samaroon oo iyaguna awdal seed ayaa urur leh oo kaa dacwoonaya iminkana garxajis baa kusoo biiray adeer saa ictiraaf filaysa markaa raggii kula deganaa waana waxba ogoleen oo marka la yidhaaho waa kaasee liiska keena kullu habar awal iyo habar jecel yaa wax ku siinaya dee yaa wax ku siinaya adigu dib isku noqo waxaaga sax oo farmaajo yaro ku adeer waxaa la yidhaha waa kaa anagu diyaar baan nahay adeer somaliland la warleeyahay baa jirta madaxweynuhu waxa weeyaan waa ishaaq ku-xigeenkiisu waxa weeyaan waa samaroon barlamaanka waa dhulbahaante difaaca waa gabooye waxaa la yidhahaa magicii waa saas wasiirada waxaa la yidhahaa xataa isaaq hal kursiba ku lahaa inta kale soomaalida kale askale nala degan ayaa wasiiro noo ah yani suurad yaroo macaan oo la tag ummadii sawir yaroo macaan ummadda ula tag laakiin marka la arko sawirkii dhamaaye sawirkaasoo kale maanta haddaa ula tago oo fool xun waxay soo kordhinaysaa waxay soo kordhin mayso waxaa la ohanaya waa meesha waa jifadin baa meesha carcarayse yaa soomaalidaas ku timaado marka adigu deras waxaa nuqdadaha adiga kaa qaldamay waxay tahay waxaa kaa hor istaagaya waxay tahay waana la ogyahay nin kastaba wuu ogyahay nin kastaba wuu ogyahay waxaa somaliland waxaa la yidhaha ictiraafka looga guudiisan yahay laanna sawirkii guud ahaanba meesha qabiil baa ka muuqan qabiilo kalaa meesha ku dulman oo dacwoonaya maalin kasta waxa ka fadhiya markay ingiriiska ay yimaadaan talabaad xataa hadday la yidhaaho oka waa lagu ictiraafaya dee adana hadda lagu ictiraafo waa inaa china waddan oo la yidhaaho taiwan ayaa ictiraaf la siinaya spain ba ayaa meel la yidhaha catalonia ayaa iguna ictiraaf raba meel ingiriiska oo meel la yidhaho waxaa la yidhahaa ireland ba iyaduna waxaa la yidhaha wales badel waxaa la yidhaha meel la yidhaha baa iyaduna ictiraaf doonaysa maraykanka ayaa texas magaalo la yidhaaha iyaduna ictiraaf doonaysa oo doonaysa maraykanka goodo dee haddaa lagu ictiraafaadee waxaasoo dhan baa la ictiraafaya waxaasoo dhan baa la ictiraafaya waxaasoo dhan dhaqaala ku fadhiyaan adduunka saaxib marka albaab waxay isku furayaan ma isku furayaan weligaaba ciidan samayso weligaa waxaad isu samayso adiga ictiraafkaagu waxaa isku haysiin waa adigoo soomaali la fadhiista waa adigoo farmaajo u yeedha waa farmaajo ku yeedho oo meel dhexe oo soomaaliya dhexdeeda lagu ballamo oo lagu heshiiyo sidaa uga oo lahaydeen ma 5 sannadood baa ku go-aysaa ma waxaa ku go-aysaa waxaa la yidhahaa magicii shuruud yani inaga dhexayso difaac iyo mushtarak oo amba federaali oo kale oo 5 sano kabacdi xornimadaada qaadatid oo markaa shacabka la doorsiiyo iyo dooranayaan ma soomaali weyn bay rabaan aanay dowlad amba siyaasi soo dhex gelin waxaasi ku xirantay adeer riyada ka kaca adeer riyada ka kaca رياضا وحالي أفر عقديسان إنه سارين كم حدا ساسا لودون دونا باشا وأنا كل حساب تتأدون كل وحا بدح يمدي كاحقة وأنا يكتا لكن شو تقولنا اعتراف هربا هاو سا اعتراف فيرسا ما صدق باشو باشو حربتها مسكح بيربتها مسكح ولي وفيو بيربتها xisaabtama way rabtaa adduunka xeerarkeeda adduunka caalamka la socda way rabtaa ma rabto inaan yaro anigu karfatan intuu soo gashado jaakad intuu soo gashado anigoo Somalilandara aniga Somalilandarkaagu wuxuu aniga cuntay siinaya ictiraaf ma haysti haddana maanta israa'iil shirkada adduunka caalamka kama keeni kari haddana israa'iil business ma la keeni karo meel kasta way xiran tahay albaab kasta waa la xiray albaabka kaliya waraaqo hoos laga saxiixayo xukuumadda hoose hadda inta la cadaysto wax ka wacaan ma jirto taasa wax ku helaysaa adduunka waa inaa taqaana xataa saa looga gado nin dhan baa intaas weynan oo jooga baa intaa lacag loo dhiibay oo buuran ayaa imanka ilaa iyo malaa 7 sano sanad kasta intaasoo milyan buu qaataa wuxuu soo kordhiyey 2 video YouTube uu iska sameeyey waxaa la yidhaahdaa war aniga YouTube xataa sameeya anigana YouTubera oo samayn kara wuxuu ninkaas sameeyay laakiin ma fi xal
لأن runta laga hadli maayo sababtu waxay tahay umuuru waxay tahay waxaa caqabadayna hortaagan sababu waxay tahay inta caqliga la saaxiibka la maqli maayo inta kabta ee maskaxda ah baa hadalkooda loo guliyay marka almuhim waxa weeyaan habeen wanaagsan insha allah warigar laakiin cara ayay yirsi ya akhi beeni balaayo ya akhi noo mur ya akhi aan isla fariisano isweydiinayno dadkan waxay noo hayaan this majrimid baa adeer haddaan la hadlay lahaa bal war dadka maamulka degantahay meesha degantahay waxay noo hayaan nimanka maamulkeen ka hadli maamulka aan la deganay nimanka saaqan la deganahay baan ka hadli kaca hurdaha lagu warkaconiyo alla isweydiiyo waxay ku hayaan dadkan waxa ma ku hayaan xal waxa ahaadaba ma noloshaas ku sii soconaynaa dhulkeeniyo dahab yaalo oo khayr yaalo petrol yaalo wax kasta yaalo ayaan u daawana afar caqdaysan oo siyaasiyiina عاسكون عنا مش معقولة يعني والله يلا هبي أحسن يلا أم خالد يا هبي أحسن اوكي كلكم يا عفيش مسامح يا